sidoo kale waxaa la sheegaa halkii daqiiqo oo kasta in kanaalka YouTube-ka la soo geliyo ilaa 500 oo video 500 oo video ayaa la soo geliyaa halkii daqiiqo oo kastaba. saaxiibayaal soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waa barnaamijkeena aan ugu hadli jirnay maalin ka mid ah asbuucii waxyaalaha ugu hadalhaynta badan ee asbuucaas ama asbuucyadaas ay saxaafadda dunida daafeed ka qorto. asbuucan waxaan ka hadli doonaa 10 qof ee dakhliga ugu badan sanadkan sii dhamaanaya ee maalmaha kooban ay ka harsan yihiin kasoo xareeyay kanaalkooda YouTube-ka. dabcan sanad walba markii bishan December soo gaaro bisha u dambaysa waxaa la soo saaraa 10 qof ama 10 kanaal ee dakhliga ugu badan sanadkaas dhamaanaya kasoo xareeya kanaalkooda YouTube-ka iyadoo loo kala hormariyo siday u kala dakhli badan yihiin ee dakhli ugu badan ay usoo kala xareeyeen. YouTube-ka waxaa la sheegaa in ay isticmaasho ilaa iyo 2 bilyan oo qof. sidoo kale waxaa la sheegaa halkii daqiiqo oo kasta in YouTube-ka la soo geliyo ilaa 500 oo video 500 oo video ayaa la soo geliyaa halkii daqiiqo oo kastaba. sidoo kale waxaa la sheegaa dadka daawada YouTube-ka maalinkii fiidiyoyaasha ay daawadaan waqtiga ay ku bixiyaan inuu yahay ilaa iyo 1 bilyan oo saac in ay ku bixiyaan. website-ka GQ ayaa wuxuu soo qoray 10 qof ee dakhliga ugu badan kasoo xareeyay sanadkan YouTube-ka. website-kan ayaa waxa uu 10 qof ee dakhliga ugu badan kasoo xareeyay YouTube-ka waxa uu ku soo daray oo ku jira 2 caruur oo da'doodu ay ka yar tahay 10 sano, kuwaas oo mid ka mid ah xataa caruurtaas uu kaalinta koowaad ugu jiro dadkan 10 qof ah ee dakhliga ugu badan sanadkan YouTube-ka kasoo xareeyay. dadkan 10 qof ee dakhliga ay kasoo xareeyeen iyo faa'iidada iyo lacagta ay kasoo xareeyeen sanadkan sii dhamaanaya markii la isku dardaro waxay gaaraysaa ilaa 2 bilyan iyo dheeraad. ma ahan 2 milyan, waa ilaa 2 bilyan iyo dheeraad. haddaba aan bilowno annagoo kasoo bilaabayna qofka 10aad gadaalna usoo wadayna ilaa aan soo gaarno qofka koowaad. kanaalka 10aad waxaa weeye Jeffree Star. kanaalkan inta badan waxaa la soo geliyaa muuqaalada la soo geliya waxaa weeye muuqaalo ku saabsan mic afta iyo sida loo marsado iyo qaabka ugu wacan hablaha iyo raggu haddii ay rabaan u marsan karaan. kanaalkan ayaa wuxuu haystaa si guud subscriberska ilaa iyo 16 milyan 9, yacni 17 milyan dad ku dhow ayuu haystaa ayaa ku taxan kanaalkan. si guud kanaalkan waxaa u daawatay ilaa iyo 2 bilyan oo qof iyo dheeraad. dakhliga uu sanadkan sii dhamaanaya ee 2020 uu soo xareeyay waxa weeye 19 milyan ayuu soo xareeyay Jeffree Star. waxaan ku xijinaynaa kanaalka 9aad ama qofka 9aad waxaa la yiraahdaa David Dobrik. waa nin vlogger caadiga taqaanaan, yacni qofku vlog ayuu soo duubaya noloshiisa iyo safaradiisa iyo hawlihiisa ku saabsan. ninkan ayaa waxaa ku taxan ilaa iyo 18 milyan iyo dheeraad subscriberska guud. total viewska dadka sida guud u daawaday kanaalkan maalinkii la bilaabay ilaa hadda waxaa weeye 7.7 bilyan qof ayaa daawatay, si guud u daawatay. kanaalkan ayaa waxa uu soo xareeya asna dakhliga uu soo xareeyay sanadkan waxaa lagu qiyaasay ilaa iyo 20 milyan. kanaalka 8aad ee aan soo qaadan doono waxaa weeye kanaal la yiraahdo Bilibi. kanaalkan ayaa waxaa iskale nin la yiraahdo Stephen John. ninkan ayaa wuxuu soo geliyaa muuqaalo ah madadaalo iyo waxbarashada caruurta iyo waxyaalo saas oo kale ku saabsan. kanaalkan yacni kanaal caruurta adigu hawlahooda ka shaqeeya weeye, madadaalada iyo waxbarashadooda iyo ciyaarahooda waxyaalo saas oo kale. kanaalkan ayaa si guud waxa uu haystaa 67 milyan. inta badan YouTubers marka ay malaayiin gaaraan waxay samaystaan kanaalo kale oo isla laakiin kanaalkooda ku hoos jira oo faracyo ah. marmar waxay noqotaa inay luuqado kale ay ugu turjumaan dadka luuqadaha kale ku hadla. kanaalkan ayaa si guud waxa uu haystaa 67 milyan markii la isku dardaro ninkan kanaaladiisa oo dhan. laakiin kiisa maynka ee guud waxaa la yiraahdaa Bilibi. total viewskiisa dadka sida guud u daawaday kanaalkan waa 8.2, waa 8 bilyan oo qof ayaa si guud u daawatay kanaalkan. faa'iidada sanadkan soo xareeyayna waxaa weeye 22 milyan ayuu soo xareeyay sanadkan. qofka 7aad ama kanaalka 7aad ee aan soo qaadanayna waxaa weeye mid ka mid ah caruurtii aan sheegaynay ee 10 qof ku jiray ee da'deedu ay ka yareed 10 sano. gabadhan ayaa waxay u dhalatay waddanka Ruushka, da'deedu waa 7 sano jir. kanaalkeeda magaciisa waxaa la yiraahdaa Leknastia. gabadhan ayaa kanaalkeeda Leknastia waa kanaalkeeda maynka oo ay xoogga saarto, laakiin kanaalo tiro badan ayay leedahay. 190 milyan ayaa ku taxan gabadhan kanaalkeedan iyo kanaaladeeda kaleba. yacni qofka subscriberskiisa oo dhan waa isku dardaraya wuxuu kanaal leeyahay. dabadeedna waxaa la sheegayaa dakhliga uu si guud u soo xareeyay. gabadhan ayaa waxaa daawaday ilaa 39 bilyan. gabar yar weeye oo waddanka Ruushka ku dhalatay. gabadhan ayaa inta badan xoogga wax saartaa caruurta iyo ciyaarahooda iyo waxyaalahaas. sanadkan waxay soo xareysay sii dhamaanaya 2020 24 milyan ayay soo xareysay. kanaalka 6aad ee aan soo qaadan doono ka mid ah 10 kanaal ee dakhliga ugu badan sanadkan soo xareeyay waxaa weeye Briston. kanaalkan ninkaas kale ayaa inta badan waa nin vlogs ayuu soo geliyaa, sidoo kale waa gamer game iyo waxyaalahaas asagoo ciyaaray ayuu soo geliyaa kanaalkiisa.
kanaalkiis ayaa si guud waxa ugu taxan ilaa iyo subscribe u saaray ilaa 33 milyan oo qof si guudna waxa uu daawaday kanaalkiisa ilaa maalinkii uu bilaabay si guud markii aan leenahay qofku waa ilaa maalinkii uu bilaabay 3.3 bilyan qof ayaa daawatay sidoo kale dakhliga uu soo xareeyay sanadkan si dhamaanaya dhowrka beri ay ka dhiman tahay waa 22 milyan oo dollar kanaalka shanaad ee asna dakhliga ugu badan soo xareeyay ama qofka shanaad ee dakhliga ugu badan sanadkan YouTube ka soo xareeyay waxa weeye Markiplier waa gamer weeye waa qof gamer ah soo game ciyaaraya ayuu sidoo kale soo geliyaa kanaalkiisa YouTube-ka total subscribers oo haysta waxa weeye 27 milyan weeye si guudna waxa uu daawatay ilaa iyo 3 bilyan qof baa si guud u daawatay dakhligu soo xareeyay sanadkan waxa weeye 25 milyan oo dollar kanaalka afaraad ee asna dakhliga ugu badan sanadkan soo xareeyay waxa weeye kanaalka la yiraahdo Good Mythical Morning kanaalka inta badan waxa uu soo geliyaa taxano majaajila ayuu soo geliyaa oo halka laga daawado dad tiro badan ayaa ku xiran dadka ku xiran ilaa iyo 40 milyan ayay kor u dhaafayaan si guudna waxa uu daawatay ilaa iyo 1 bilyan iyo dheeraad dakhligu sanadkan soo xareeyana waxa lagu qiyaasay oo uu yahay ilaa iyo 26 milyan oo dollar kanaalka saddexaad ee isna dakhliga ugu badan sanadkan soo xareeyay waxa weeye Dude Perfect kanaalkan ayaa waxa uu yahay kanaal sports iyo comedy iyo waxyaalo majaajila iyo sports iyo isku dayo soo geliya kanaalkan ayaa waxa ku taxan ilaa iyo 57 milyan oo qof sidoo kale waxa si guud u daawaday ilaa 2.5 bilyan dad ka badan dakhliga uu soo xareeyay sanadkan waxa weeye si dhamaanaya ilaa 30 milyan marmarba waxa is leedahay waa shirkado caadi ah YouTube-ku dabcan shirkado badan oo adduunyada ka jira waxaaba ka dhaqaale badan oo ka soo dhaqaale xareys badan kanaalka YouTube-ka kanaalka koowaad oo number 2 ku jira oo sanadkan dakhliga ugu badan soo xareeyay YouTube-ka waxa weeye kanaal ay leedahay mid kamid ah carruurtii aan sheegnay ee labada ahaa ee da'doodu ay ka yareen 10 sano gabadhan yarta ayaa da'deedu waxay tahay 9 sano 3 sano oo isku xigtana waxay noqotay qofka koowaad ee dakhliga ugu badan ka soo xareeyay YouTube-ka gabadhan ayaa waxay soo gelisaa oo loo soo geliyaa kanaalkeeda YouTube-ka iyadoo sameynaysa adigu gaming carruurta wax saas oo kala iyo unboxing waxyaalaha ay carruurta ku ciyaaraan iyadoo ku sameynaysa gabadhan ayaa kanaalkeeda waxa la yiraahdaa Ryan's World waxa ku taxan oo subscribe u saaray kanaalkeeda 41 milyan oo qof sidoo kale 12 bilyan oo qof ayaa daawatay oo si guud u daawatay kanaalkeeda gabadhan ayaa si guud waxay soo xareysay dakhli dhan 38 milyan ayay soo xareysay waa lacag adag weeye dabcan carruurtu awood adag ay ku leeyihiin YouTube-ka oo si adag ay u daawadaan xitaa muuqaalka ugu daawashada badan YouTube-ka ilaa hadda aan joogno waa hees carruureed la yiraahdo Baby Shark ilaa iyo waxa daawaday yacni 7 dheeraad bilyan oo waxay ka sarbartay waa dhaweyto heestii caanka ahayd ee sanadaha badan kaalinta koowaad ku jirtay ee Despacito sida aan u jeedno 10ka YouTubers ama 10kaas kanaal ee dakhliga ugu badan sanadkan soo xareeyay uguma dhex jeedno dadkii bariga dhexe caanka ka ahaa haddii carabta ahaan lahayd qaaradeen Afrikana iska badaaba qof yacni qaaradda Afrika oo YouTube-kiisa halka jooga 10ka qof uguma dhex jeedno Soomaalidana waa ay qarso weeye iyo warkoodu saaxiibeen intaasaan ku soo koobaynaa barnaamijkeeni waa maasantiin mar labaad iyo mar saddexaad maalin kamid ah usbuuca ayaa barnaamijyo saan oo kala ah soo gelin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo adigu wixii ugu hadal haynta badan ee usbuucaas dunida daafeeda ka dhacay ay saxaafadu uga qorto idinku aad u mahadsan waxaan idinku codsanayaa haddii aad hore ugu taxanaydeen kanaalkayga inaad like ii saartaan haddii aad hadda ku cusub tihiin in aad like iyo subscribe ii saartaan waa maasantiin guuleysta